wuxuu ahaa dagaal ku bilowday yididiilo iyo rajo gundhigeedu uu ahaa baadigoobidda Soomaaliyadii weyneed. laba dal oo marka laga yimaado inay diris wadaag yihiin ku kala duwanaa awoodda ciidan iyo saamaynta siyaasadeedba. dal sanooyin yar uun ka hor iska qaaday heryadii gumaystaha, nasiibna aan u yeelan xasilooni siyaasadeed oo waarta gumaystihii kadib, iyo boqortooyo lagu naanaysi jiray libaaxii Afrika oo idilna ay ka cabsan jirtay egmadeeda oo keliya, iska daa inay ku fakarto la dagaalamideeda. dagaal markii ugu horeeyay mideeyay reer galbeed iyo Sofiyeet oo isku ahaa dab iyo baansiin, iyagoo u midoobay aasidda iyo burburinta cududii Soomaaliyeed ee amakaaga ku noqotay Sofiyeetka iyo Xabashidaba. markii uu dhammaadayna ma noqon mid ku soo afjar masaaxadihii dagaalka oo keliya, balse wuxuu hilfaha u laabay nidaamkii dowladnimo ee ka jiray Soomaaliya. haddaba bal aynu dib u baarno safxadihii taariikheed ee laga qoray dagaalkii Soomaali galbeed ama loo yaqaanay dagaalkii Ogaadeeniya, aynuna milicsanno taariikhda uu leeyahay dagaalkan ay Soomaali badan moogan tahay, halka Itoobiyaankuna ay sanad walba u dabaaldegaan oo aysan weli ka go'in maankooda. markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka laguna jebiyey xulafadii uu Talyaanigu ku jiray, waxaa dhulka koonfurta Soomaaliya gacan ku hayntiisa ku wareegay gumaystihii Ingiriiska. horeyna wuxuu u haystay gobollada waqooyi, NFD, Hawd iyo dhulka loo yaqaano Ogaadeeniya. sanadkii 1945 Ingiriiska ayaa soo jeediyey hindise ah in dhulka Soomaali galbeed, waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya uu mideeyo. waxaa qorshahan aad uga biyadiiday Itoobiya. markiiba waxaa safar magaalada London ku tegay wafdi matalayay Itoobiya, waxayna boqortooyada Ingiriiska u gudbiyeen codsi ah in dhulka Soomaaliyeed ee Ogaadeeniya iyo Hawd iyo sidoo kale Eritrea iyaga gacanta loo soo geliyo. waxa ayna sidoo kale qeyladaan gaarsiiyeen Mareykanka oo ku taageeray hindisahooda. arrintan ayaana keentay inuu isbedelo mowqifkii Ingiriiska, waxa uuna qaatay go'aan ah in dhulka Soomaaliyeed ee Ogaadeeniya iyo Hawd uu ku wareejiyo maamulka boqor Hayle Salaase ee Itoobiya. ugu dambeynna sanadkii 1955 ayuu si toos ah ugu saxiixay Itoobiya in ay la wareegto dhulka Soomaali galbeed iyo Hawd. sidaasi ayuuna ku noqday dhulkaasi mid hoostaga gumaysi cusub oo ka arxan daran gumaysigii caddaanka ahaa. markii ay dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaa markiiba bilowday qorshe siyaasi ah oo lagu doonayo in la xoreeyo gobollada kale ee Soomaaliyeed ee weli ku haray gacanta gumaysiga, kuwaasi oo kala ahaa NFD, Djibouti iyo Soomaali galbeed. Soomaaliya oo ahayd dal curdin ah aan lahayn awood ka baxsan midda siyaasiga ah, ayaa ugu horeyn xoogga saartay diblomaasiyadda caalamiga ah, waxaana saaxadda caalamka isugu soo baxay dowladdii bilowga ahayd ee Soomaaliya iyo boqortooyada gabowga ah ee Itoobiya iyo gumaystaha Ingiriiska. xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Ingiriiska ayaa xumaaday. xukuumaddii Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sanadkii 1963 xiriirka u jartay boqortooyada Ingiriiska, kadib markii bishii saddexaad ee sanadkii 1963 Ingiriisku uu mar kale khalad taariikheed ka galay ummadda Soomaaliyeed, isaga oo dhulka NFD u saxiixay Kenya. sanadkii 1964
Soomaaliya oo ku jirta xilli doorasho ayaa waxaa xuduudaha dalka soo weeraray ciidankii xabashida oo doonayay inay qalalaase geliyaan hawsha doorashada. Arrintan ayaana keentay inuu dagaal dhex maro Soomaaliya iyo Itoobiya. Ciidanka Itoobiya ayaa weerar ku soo qaaday magaalooyinka dhaca xuduudda sida Doolo, Feerfeer iyo Gaalkacyo iyo tuulooyin hoostaga Beledweyne. Ciidanka Soomaaliya oo aan awood badan lahayn ayaa haddana difaac muujiyay. Dib ayayna u riixeen ciidankii xabashida. Ugu dambeynna waxay labada wadan magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ku kala saxiixdeen heshiis xabad joojin ah. sanadkii 1969 markii xukunka dalka ay la wareegeen ciidanka xoogga ee uu hogaaminayay Jaalle Maxamed Siyaad Barre, waxaa mar kale la bilaabay in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo ciidanka xoogga oo midowga Soofiyeed tababar iyo qalabayn ka helayay ilaa iyo sanadkii 1962. Kacaanka ayaa aad u ballaariyay awoodda ciidanka, waxaana muddo gaaban uu ciidanku ku noqday mid ka mid ah kuwa ugu awoodda iyo xirfadda fiican ciidamada qaaradda Afrika. sanadkii 1974 waxaa xilka laga tuuray boqorkii Itoobiya ee Haile Selassie, waxaana xukunka la wareegay jabhad dooxata ah oo uu hogaaminayay askari lagu magacaabo Mengistu Haile Mariam. deegaan walba waxa ay ka geysteen xasuuq ba'an, waxaana hoos u dhacay nidaamkii maamul oo markii hore ku dhisnaa xukun boqortooyo. Kadib 4 sano oo qalalaase ah, Mengistu ayaa sanadkii 1977 ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha Itoobiya, dalkana uu ku soo rogay nidaamka hanti wadaagga, sidoo kalena uu jaray xiriirkii galbeedka. Itoobiyana wuxuu ku xiray dhanka bariga iyo midowgii Soofiyeed. dhanka kale dawladnimada Soomaaliya ayaa waxa ay sameeynaysay kobac aad u ballaaran dhaqaale ahaan iyo awood ciidan ahaanba, waxaana Soomaaliya waqtigaasi ay ahayd dal aad lagu qadariyo saaxadda caalamka, gaar ahaanna midda Afrika. Soomaaliya ayaa dadaal dheer u gashay sidii gobolka ku harsan gacanta gumaysiga ee Soomaali galbeed loo xareyn lahaa. Waxaa marar badan fashilmay wadahadallo midowga Afrika uu dhex dhigay wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya. Dawladdii kacaanka ayaa markii dambe qaadatay qorshe ah in jabhado hubeysan lagu beero gudaha Itoobiya. Dawladdii Soomaaliya waxay tababar iyo hubeen u samaysay jabhaddii xoreynta Soomaali galbeed. sidoo kale waxay taageeraysay jabhadihii Eritrea ka dagaalamayay iyo kuwii gobolada Tigray iyo Oromo ka dagaalamayay. Dagaalkii jabhaduhuna wuxuu ku fiday gobolada Hararge, Koonfur Bari Baalle iyo Sidaamo, iyagoo ku guuleystay inay burburiyaan awoodda ciidamada booliiska, militariga iyo isku socodka maamulka ee goboladaasi. Waxay isugu keeneen ciidamadii Itoobiya inay ku soo ururaan saldhigyada waaweyn ee militari iyo magaalooyinka. Shacabka deegaanadaasi waxay si xad dhaaf ah u soo dhaweynayeen jabhadaha Soomaali galbeed. Horaantii 1977 jabhaduhu waxay gacanta ku dhigeen inta badan dhulka Soomaali galbeed iyo Sidaamo. inkasta oo maamul ahaan aysan samayn isbedel weyn, waxay awooddaasi ku gaareen taktikada ah ku dhufo oo ka dhaqaaq, iyagoo garaacayay meelaha ciidamada Itoobiya ka jilicsan yihiin, kadibna shacabka oo taageersanaa dhexgelayay. taktikadaasi waxay ku qasabtay in ciidamadii Itoobiya ku ururaan saldhigyo gaar ah oo aysan si xor ah ugu socdaali karin dhulka Soomaali galbeed. Markii jabhaduhu jilciyeen ciidamadii Itoobiya, sidoo kalena qalqal ku abuureen amniga gudaha Itoobiya, ayay dawladdii kacaanka ee talada u haystay Soomaaliya dejisay qorshe ay ku xoreynayso inta ka harsan dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya xoogga ku haysato. waxaana la dejiyay abaabul ballaaran oo dagaal jihooyin badan ah lagu qaadayo Itoobiya.
bartamihii 1977 dagaalku wuxuu u jihaystay mid ciidamada militariga caadiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kan Itoobiya ka dhex bilowda. Militariga Itoobiya waxay istiraatiijiyad ka dhigteen inay nafteed hornimo sameeyaan inta ay ka helayaan gurmadka saaxiibadooda caalamka. Waxa ay qiyaasayeen in ciidamada Soomaaliya ay laba dhinac ka soo weerari karaan, inkasta oo aysan sheegi karin dhinaca ay soo marayaan. Waxayna ahaayeen labadaasi dhinac, waqooyi iyo koonfur. waxay go'aansadeen in ciidankooda ugu muhiimsan isugu geeyaan dhinaca Jigjiga. Waxay sidaasi u yeeleen maadaama magaaladaasi ku taalo meelo wadooyinka magaalooyinku isaga yimaadaan, ahna goob istiraatiiji u ah magaalooyinka waaweyn ee bariga Itoobiya. Dhinaca kale, Soomaalida laftigeedu waxay arkayeen isla muhiimadaasi ay magaalada Jigjiga leedahay. Waxaa la sheegaa in dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya oo si guud ahaaneed u bilowday 13 bishii toddobaad 1977. dowladda Soomaaliya ayaa howlgelisay ciidan tiradooda lagu sheego 35,000 oo askari oo u kala qaybsanaa guutooyin kala duwan, sida 23 guuto oo ciidanka lugta ah, 9 guuto oo ciidanka taangiyada ah, 9 guuto oo ciidanka madaafiicda ah, iyo 4 guuto oo ciidamada cirka ah. guud ahaan diyaaradaha Soomaaliya waxay ahaayeen 52 diyaaradood. 24 ka mid ahna ay ahaayeen diyaaradaha loo yaqaano MiG-22S. waxaa sidoo kale dagaalka ku jiray ku dhawaad 7,000 oo askari oo ka tirsanaa Jabhadda Xoreynta Soomaali Galbeed. waxyaabaha caawiyay Soomaaliya waxaa ka mid ahaa ciidanka oo akhlaaqdooda, moralkooda iyo tababarkooduba aad u sareeyay, sidoo kalena haystay qalab ku filan. ciidankii xoogga dalku wuxuu aad uga dhisnaa dhinaca guutooyinka madaafiicda. madaafiicduna waxay ahayd hubka ugu muhiimsan ee ay wax ku weerarayeen. awoodaha kale ee Soomaaliya waxaa ka mid ahaa ciidamadii kumaandooska ahaa oo loo tababaray qaab aan cidna hor istaagi karin. toddobaadkii ugu horeeyeyba waxaa ciidamada Soomaaliya u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan bartamaha iyo koonfurta gobollada Soomaali Galbeed. intii dagaalku socday waxay ciidamada Soomaaliya marba marka ka dambaysa ka soo hoynayeen guulo aad u ballaaran. waxa ay ciidamada Soomaaliya daba socdeen oo eryanayeen ciidamada Itoobiya ilaa laga gaaray goobta loo yaqaano Sidamo. markii la gaaray Sebtembar sanadkii 1977, ciidamada Soomaaliya waxa ay gacanta ku dhigeen inta badan gobollada galbeed. waxay kaloo qabsadeen goobo iyo magaalooyin muhiima oo ka baxsan gobolka. dagaalkii wuxuu si dhaqso ah isugu aruuray 3 geesoodka Diridhaba, Harar iyo Jigjiga. waxay Itoobiyaanku ku dadaalayeen inay difaacdaan meelahaasi wixii ay awood lahaayeen ay isugu geeyeen, maadaama xaruntooda keedka ciidan iyo saanad ay ahayd Diridhaba, isla markaasina ay maraysay wadada tareenka ee isku xiri jirtay Itoobiya iyo Djibouti. bartamihii Agosto, ciidamadii Soomaaliyeed waxay ku qaadeen dagaalkoodii qaybtii labaad ee xoogganaa magaalada Diridhaba. markiiba Soomaalidu waxay gudaha u galeen magaalada iyagoo xeelad militari oo aysan filayn Itoobiyaanku ku sameeyay, sababtoo ah waxay u maleynayeen in Soomaalidu ay qabsan doonto marka hore magaalada Jigjiga. dagaalka Diridhaba wuxuu ahaa mid aad u culus oo faraha la iskula tegay, iyada oo ay Soomaalidu u awood sheegatay ciidamadii Itoobiya. balse dhinaca cirka ayuu dagaalku isku rogay, iyadoo ciidamada cirka ee Itoobiya ay si aad ah uga qayb qaateen dagaalkaasi. ciidamada cirka Soomaaliyeed waxay ku dagaalamayeen diyaaradaha Ruushka ee loo yaqaano MiG, halka ciidamada cirka Itoobiya ay ku dagaalamayeen diyaaradaha Mareykanka ee loo yaqaano F5. waxaa awoodda cirka ku yeeshay ciidamada cirka Itoobiya, halkaasi oo moralka ciidamada Itoobiya ku soo noolaaday. kan Soomaaliduna hoos ugu dhacay. waxaa la yaab noqotay sida ka muuqata taariikhda laga hayo dagaalka Diridhaba in ciidamada Soomaalida oo si muqoonsi ah uga xoog roonaaday kuwa Itoobiya muddo kooban, in haddana aysan isticmaalin awood intii loo baahnaa ee ay haysteen si ay cagta u mariyaan difaaca Itoobiyaanka, oo aysan siin fursad ay isku abaabulaan. Soomaalidu ma isticmaalin awood intii loo baahnaa, waxaana aad u liitay isku xirka qaybaha kala duwan ee ciidanka militariga Soomaaliyeed ee ka dagaalamayay aagga Diridhaba, sida ciidanka lugta, ciidanka taangiyada iyo ciidanka cirka. intaasi waxaa dheer markii Itoobiyaanku dib isku soo abaabuleen oo arrintu qaraaraatay,
dagaalkuna aad u xumaaday ciidamada Soomaaliyeed ma helin gurmad degdeg ah halkaasina waxay ku lumiyeen awooddii military ee Diridhaba dagaalka qaybtiisii saddexaad waxay Soomaalidu markan ku furteen magaalada Jigjiga dhamaadkii Agoosto inkasta oo ay horey u qabsadeen dhulka u dhow oo idil dagaalka Jigjiga wuxuu qaatay waqti ka dheer dagaaladii kale iyada oo 2 jeer la kala qabsaday kaasi oo gaaray ilaa bartamihii Sebtembar halkaasi oo ciidamadii Soomaaliyeed u xoog sheegteen kuwii Itoobiya iyadoo ciidamadii Itoobiya ay u gurteen dhinaca Karamadha halkaasi oo laga sii saaray markii dharbaaxadaasi culus ku dhacday difaacii ugu adkaa ciidamada Itoobiya ayaa Mengistu Haile Mariam hogaamiyihii Itoobiya go'aansaday inuu tago furinta hore ee dagaalka si uu u dhiso moralka ciidanka ugana qayb qaato abaabulka iyo dib u celinta ciidamada soo cararay wuxuu tegay Harar balse markii uu arkay in dagaalku ku soo siqayo ayuu ku laabtay Addis Ababa si uu ugu qeylo dhaansado saaxiibadiisa wadamada caalamka wuxuu sidoo kale hawlgeliyay ciidanka kaydka oo gaarayay 75,000 oo askari ciidamadii Soomaaliyeed waxay ka gubeen ciidamada Itoobiya gaadiid ciidan oo aad u fara badan iyagoo ka qabsaday taangiyo iyo baabuurta kale ee dagaalka halkaasi ayay guushii ugu weyneed ee dagaalku ku raacday ciidamadii Soomaaliyeed iyagoo ka talinayay dhulka Soomaali galbeed muddo dhowr bilood ah dagaalku markan wuxuu u jihaystay dhinaca Addis Ababa halkaasi oo Itoobiyaanku isugu geeyeen wadooyinka soo gala dhammaan waxay awood ay lahaayeen waxay difaacooda ku xoojiyeen labada wado ee waaweyn ee Hawaash ilaa Casab iyo Hawaash ilaa Harar dagaalku wuxuu si xoog leh ugu fiday aaga Harar Diridhaba ilaa wadada gasha Hawaash markii ay ciidamada Soomaaliya u jihaysteen dhinaca Addis Ababa waxa dagaalka si toos ah u soo galay ciidamada quwaddii Midowgii Soviet Yemen Kuuba Libiya iyo kuwa kale dawladda Soomaaliya oo dareentay laba wajiileynta Soofiyeedka iyo wadamadii shuuciga ahaa ayaa bartamihii November 1977 xiriirka u jartay dawladdii Midowgii Sofiyeedka oo arrintan aad uga carooday ayaa waxay si toos ah uga soo jeesteen dhinaca Itoobiya waxay siiyeen Itoobiya wax kasta oo lagu jabin karo ciidamada Soomaaliya dhaqaale military siyaasad iyo xiriirka caalamkaba isla markiiba waxay Sofiyeedku u soo rareen Itoobiya diyaaradaha dagaalka ee MiG-17 MiG-22 taangiyada T-54 iyo T-55 helikobtero waaweyn nooca loo yaqaano Mi-6 iyo Mi-8 baabuurta waaweyn ee BTR 152 noocyada gantaalada BM-22 gantaalada ka hortaga taangiyada iyo hub noocyo kala duwan ah oo aad u fara badan taasoo lagu qiyaasay adduun gaaraya balaayiin dollar ciidamadii Soomaaliyeed oo Sofiyeedku soo tababaray siiyeyna hubka ay ku dagaalamayaan intiisa badan isla markaana yaqaana awoodda iyo qaab dagaalkooda wuxuu si toos ah ugu hawlgalay burburintooda saraakiishii isbuucyo ka hor joogay dhinaca Soomaaliya ee Sofiyeedka ahaa waxay ka soo jeesteen dhinaca Itoobiya dhinaca kale waxa dagaalka soo galay ciidamo Kuuba ka soo jeeday oo gaarayay in ka badan 20,000 oo askari ayna u dhan yihiin dhammaan hubka iyo saanada ciidamadu iyagoo ah awood aad u hubaysan waxaa sidoo kale dagaalka soo galay Yemanta Koonfureed iyo Libiya oo taageero siinaya Itoobiya waxay noqotay in Itoobiya ay heshay awood ciidan oo aad uga fara badan intii ay ka codsatay saaxiibadeed halka Soomaalidu ay noqotay kaligeed inkasta oo ay dawladaha Carabta qaarkood ka kaalmeeyeen dhinaca saadka dhinaca kale maadaama ciidamada Soomaalidu ay gudaha u sii galeen Itoobiya waxay dadweynaha halkaasi ku nool waxay noqdeen kuwo aan u soo dhoweyn sida dadweynihii hore ay u soo dhoweynayeen markii ay qabsanayeen dhulal badan oo Soomaali galbeed ah iyadoo ciidanka Soomaaliduna uu sii galay dhul buuro dhaadheer leh oo ku noqday caqabad ilaa dhamaadkii Janaayo dagaalku wuxuu si aad ah uga socday Harar iyo dhinaca wadooyinka iyo buuraleyda aada Hawaash ciidamada Soomaaliyeed oo muujiyay dagaal aad u qaraar oo geesinimo xad dhaaf ah wadata ayaa waxay la dagaal galeen ciidamadii isbahaysiga iyagoo muddo dhowr bilood ah ku dagaalamayay dagaal ka yaabiyay isla Sofiyeedkii soo tababaray intaasi kadib ciidamadii isbahaysigu waxay xoojiyeen weeraradoodii bilihii Diseembar, Janaayo iyo Febraayo
ugu dambayntii ciidamadii Soomaaliyeed waxay noqdeen kuwo la go'doomiyey oo ay xitaa diyaaradaha huwantu garaacaan xadka gobollada waqooyi ee Soomaaliyeed. markii ay ciidamadii Soomaaliyeed muujiyeen dagaal aad u xirfadaysan ayay ciidamadii huwantu waxay go'aansadeen in la sameeyo istiraatiijiyad cusub oo lagu jabiyo ciidamada Soomaaliyeed kadib markii ay Soomaalidu fashilisay dhammaan istiraatiijiyadihii ay huwantu ku dagaalgalaysay. xulafadii dhanka Itoobiya ayaa bedelay qaacidada dagaalka. laga bilaabo Febraayo ciidamadii huwantu waxay si xad dhaaf ah u soo weerareen ciidamadii Soomaaliyeed iyagoo dhinac walba haystay wixii ay u baahdaan, halka ciidamada Soomaaliyeed ay ka muuqatay daal fara badan, saadkii oo kasii gabaabsi noqday iyo iyagoo aad uga sii fogaaday furintii dagaalka. waxaa intaasi dheeraa iyadoo isbahaysigii huwantu ay dhinaca xiriirka caalamka uga dheereeyeen dowladdii Soomaaliyeed, waxayna tuseen caalamka dowlad gardarro ku qabsatay Itoobiya. dowlado yar ma ahane intii kale waxay si toos ah iyo si dadbanba u taageerayeen dowladdii Itoobiya. dagaalku wuxuu si toos ah u dhex maray ciidamada Kuuba iyo Ruushka oo dhinac ah iyo ciidamada Soomaaliya, halka Itoobiyaanku ay intoodii badnayd saaxadda ka baxeen, maleeshiyooyin cusubna ay meelaha laga qabsado Soomaalida degayeen. ciidamadii Soomaaliyeed waxay muujiyeen difaacid aad u adag dhammaan meelihii ay qabsadeen, gaar ahaan magaalada Jigjiga oo dagaalka ugu qaraar ay huwantu ku soo qaadeen. kadib markii ay ciidamadii huwantu jabin waayeen difaacii ciidamada Soomaaliyeed waxay ku daabuleen ciidamo iyo hub diyaaradaha waaweyn ah ee Sofiyeedka ee qaada hubka waaweyn iyo ciidamada, waxayna ku daadiyeen ciidamo wax walba u dhan yihiin gadaasha dambe ee dhabarka ciidamada Soomaaliyeed, iyagoo markaana isugu dareeyay duqeyn cirka ah iyo dagaal toos iyo gadaal lagaga keenay ciidamada Soomaaliyeed. diyaaradaha Ruushku waxay duqeyn ba'an u geysteen Hargeysa iyo dekadda Barbara oo dhowr bilood ka hor u ahayd Sofiyeedka saldhigga military ee ugu weyn ee ay halkaasi ku lahaayeen, iyagoo ka hortagay in gurmadka ciidamada Soomaaliyeed halkaasi ka yimaado. ciidamadii Soomaaliyeed ee magaalada Jigjiga difaacayay waxay muujiyeen geesinimo xad dhaaf ah, iyaga oo aan haysan wax saad u imaanayay, go'doonna laga dhigay lagana hubiyo ciidan badnaa. ciidamadii Soomaaliyeed ee gudaha u galay Itoobiya waxay ku qasbanaadeen inay dib uga soo baxaan dhammaan goobihii ay qabsadeen, gaar ahaan Jigjiga oo ahayd halkii dagaalku ugu qaraaraa. horaantii bishii Maarso magaalada Jigjiga waxay gacanta u gashay ciidamadii huwanta, iyadoo dowladdii Itoobiyana ay lama filaan ku noqotay guushaasi. hogaamiyihii Itoobiya Mengistu Haile Mariam isagoo arrintaasi ka hadlaya wuxuu yidhi, guushani ma ahan mid keliya Itoobiya u soo hoyatay, balse waa guul ay gaareen dhammaan shuuciyada adduunku. intaasi wixii ka dambeeyey dagaalku wuxuu isku rogay mid ah ciidamada Soomaalida oo guuraya iyo kuwa huwanta oo degaya goobihii dhulka Soomaali galbeed ee hore ciidamada Soomaaliyeed u haysteen. waxa uuna dagaalku si rasmi ah u istaagay bishii Maarso sanadkii 1978 iyada oo ciidanka Soomaaliya uu dib ugu soo laabtay xuduudka. qasaaraha dagaalka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay ka dhinteen 6400 oo askari, 2400 oo dhaawac ah iyo 275 askari oo maxbuus ahaan loo qabsaday, halka Itoobiya ay kaga dhinteen 6200 oo askari, 10500 oo dhaawac ah iyo 4000 oo maxbuus. sidoo kale Kuuba waxaa dagaalka looga dilay 160 askari, Yamanta Koonfureedna 100 askari iyo 35 askari oo midowga Sofiyeet ah. dhanka hubka sida laga soo xigtay keedka jaamacadda Oxford ee arrimaha caalamiga ah, Soomaaliya waxaa looga gubay 90 gaadiidka dagaalka ah, halka Itoobiya laga gubay 1400 oo gaadiidka dagaalka ah. diyaaradaha Soomaaliya ee dagaalka lagu soo riday ayaa lagu sheegay 25 MiG iyo 11 helikobtar, halka Itoobiya iyo xulafadeeda oo ciidanka cirka ku xoogana laga soo riday 26 diyaaradood. Soomaaliya ayaa waxaa dagaalka uga burburay 200 oo taangi iyo 30 gaadiidka madaafiicda xambaara ah, halka Itoobiya laga gubay 139 taangi iyo 108 gaadiidka waaweyn ee madaafiicda xambaara ah. Kuuba ayaa sidoo kale laga gubay 11 taangi oo ah nooca loo yaqaano T-11. waxaa sidoo kale dagaalka ku dhintay shacab lagu qiyaasay 25,000 oo ah dadkii deganaa deegaanadii lagu dagaalamayay, kuwaasi oo u badnaa Oromo iyo Soomaali.
markii dib loo qiimeeyey dagaalkaasi waxaa la dhihi karaa haddii Itoobiya aysan heli lahayn caawinta quwadaha shisheeye Soomaaliduna adeegsan lahayd xeelad siyaasadeed oo ku mataansan midii ciidanka dhulka Soomaali galbeed wuxuu ku jiri lahaa gacanta Soomaaliyeed sidoo kale qaladka ugu weyn ayaa lagu sheegay inuu ahaa inaysan Soomaaliya ku adkaysan ku ekaanshiyaha dhulka ka maqan oo haddii aysan dhaafi lahayn xuduudka Ogaadeniya in ay noqon lahayd in ugu yaraan miiska la isugu yimaado balse markii ay ku sii fogaadeen gudaha buuraleyda ee dhanka shishe ee Harar iyo Diridhaba isla markaana quwado shisheeye soo galeen dagaalka waxay noqdeen kuwo aan sii haysan karin guulihii ay gaareen iyo dhulalkii ay qabsadeen waxaana sidoo kale indhaha caalamka loo tusay in Soomaaliya ay gardarro ku socoto oo ay doonayso inay la wareegto Itoobiya oo dhan dagaalkii 77 ee xoreynta Soomaali galbeed wuxuu bahdil ku sameeyay sumcaddii Itoobiya oo qaaradda Afrika looga aqoonsanaa boqortooyo awood leh aadna looga cabsan jiray waxaa la yaab noqotay sida ciidankii xabashida ee awoodda badnaa ay cagta u mariyeen ciidan dawlad ka awood yar xorriyaddana qaadatay 17 sano waqti laga joogo haysatana ciidan aad uga tiro yaraa kan Itoobiya bugaagta taariikhda iyo qoraalada kaydka sida ay meelo badan ku qireen Itoobiyaanka iyo Kubaankuba ciidamada Soomaaliya ee ka dagaalamayay Itoobiya waxay muujiyeen geesinimo iyo hawlkarnimo xad dhaaf ah taasoo keentay in meelo badan oo sooyaalada taariikhda ah lagu xuso kartidan ay ciidanka xooggu muujiyeen Itoobiya iyo Soomaaliyaba waqtigaasi wixii ka dambeeyay midna ma helin xasilooni siyaasadeed Soomaaliya marka laga soo tago jabkii huwanta Sofiyeedku u geysteen ciidanka Soomaaliya haddana dagaalka waxaa ka dhashay khasaarooyin badan sida dhaqaalihii oo hoos u dhacay xiriirkii caalamka oo wiiqmay iyo jabhado hubaysan oo ku kacay dawladdii Soomaaliya iyo dawladdii oo leysay in badan oo ka mid ahaa libintii iyo saraakiishii guusha keentay dadka taariikhda oo darasa ayaa ku tilmaamay in qaabkii dawladda Soomaaliya ay u maamushay dhibaatooyinkii ka dhashay dagaalkii 77 uu ka mid ahaa sababihii ugu waaweynaa ee keenay in dalku burburo maadaama dawladdu daciif noqotay waxaa dalka soo wajahay culeysyo aad u badan wuxuuna noqday dal keligii taagan oo aan wax xulafo ah lahayn gudaha waxaa looga kiciyey jabhado u hubaysan qaab beeleediyo waxaana meel walba ka bilowday fowdo iyo gadood ciidan jabhadaha ayaa intooda badan ka soo shidaal qaadanayay gudaha Itoobiya waxaana hogaaminayay isla saraakiishii shalay qaybta ka ahaa ciidanka xoogga ee dagaalka ku jabiyay Itoobiya xasilooni darro siyaasadeed maamul xumo iyo cadaadis ba'an oo ay dawladdu shacabka ku haysay ayaa muddo kadib keentay in dalku burburo sanadkii 1991 halkaasina ay ku tirtiranto awooddii ciidanka xoogga Soomaaliyeed dalkuna waxa uu gacanta u galay jabhado aan wax aragti siyaasadeed iyo mid maamul ah lahayn muddo kadib markii ay dalka burburiyeen iyagii ayaa isku jeestay mid walbana waxa uu hub ka doontay Itoobiya ummadda Soomaaliyeedna waxay noqotay mid meel walba ku bahdilan nasiib u yeelatay abaaro macluul dagaal sokeeye iyo in meel walba oo caalamka ah ay qaxooti ku noqdaan Gabagabaya hoogiyo, kumatay dhaxlaysaa.